horta ka gudahan ku horeynaya marka mudaharaad xisbi mucaarad qabanayo ama shicibku qabanayo waxay codsi geeyaan sida procedure-ka ama xeerarka dalka gaar ahaan dastuurka annagoo sharciga ilaalinayna wasaaradda arrimaha gudaha oo qaabilsan iyada ogolaanshaha ama diidmada soo bixisa ma jirto meel annagu ummadda localka ama dalka gudihiisa aan ugu baaqnay in mudaharaad la sameeyo haddii aanu doonaynana waxaanu samayn lahayn nidaamka sharci baanu raaci lahayn nidaamka dawladnimada dalka ka jira waa faashil xisbiga wadana la jecel badan baa dalkan iyo dadkanba ka haysa hogaamiyahana hogaaminaya edaab iyo akhlaaq iyo amni jacayl buu ku hogaamiyaa xisbigeega inaanu dadka soo saarno oo kicino oo orano isu soo baxa 24 saacadood waxa aanu uga cabsi qabnaa oo taa u fulin laanahay in nabadgelyada dalku gacanta ka baxdo maadaama oo kala dambeyntii iyo haykalkii hanaankii haybadii dawladnimada dalku meesha uu ka baxay oo cid aan la garanaynin dalka ay maamulkiisa isku haysata 24 saacadood taasi waa taasoo wadaniga dhabta inaanu nahay oo la xajaclo dalka aanu ka qabnaa cadaan iyo qayrkii toona nagama hor istaagi karayaan haddaanu sorno ummadda soo saaro oo dareenkooda cabiran tan bannaanka London ka socota waa dareen shacab cadaan waxaanu weydiinaynaa war ma waxaad sugaysaa intaad maatida iyo masaakiinta maalkoodii aad gurateen aad dhulkii iibiseen aad buurihii iibiseen ee badihii iibiseen ee dekadihii aad iibiseen intaad walxaha ama unugyada jirkooda aad xalaashaysaan aad iibinaysaan ayay ummaddu sugaysaa miyaa inay idinka aamusto kacdoon shacab oo Somaliland ka siman tahay oo u dul qaadan laayihiin eexda musuqa qabyaaladda qaraabakiilka maamul xumada dalka ka jirta iyo iibka hantida ummadda ka dhaxaysa ayuu ka dhashay kan dareen aanu qabno ka xisbi ahaana weeyaan ummaduna danyada xaq u leh in barta ku mudaharaado oo dunida ay tusto in waxan wax aanu jira aanu ahayn oo wax feega oo ashxaas ku macaashayso oo dhigmiirata oo ku mabtay maalkii ummadda wadogtiino 5 milyan maad banka dhaxal lacagtii ay lahaayeen waan ku shubnay xabadi kama taal maada lacagahan ummadda ay ka qaadayaan maada marka cadaani jawaabtiisu waxa weeyaan inuu 24 saacadood uu hadlo yiraahdo waxba difaacay arkoono loo jawaabay ku hadii uu tamar iyo taagu leeyahay kacdoon shacab banaanka dunida ka bilaabmay bartana way ka bilaabmaysaa oo lagugu eegan maayo dalkan inaad sidan aad ku maamushay deetaan u diyaar garoobaan lan waxay eedeeno culus weeyaan eedenaha wasiirkii maxkamadda la qartay dadku waxay isweydiinayaan barkad warbaahinta soo bandhiga cadeynayso intaas eedaasta ma dalka inay maamul xumo ka jirto musuq ka jiro ka jirto qabyaalad ka jirto intaasoo dhan oo aan sheegay ay ka jirto dawladda Soomaaliland baa ka marxaatiya taas ma shaki baa ka jirta in waxa cadeynteedu ay tahay dawatan xooluhu umada la iibinayay meel lacagtii lagu qaaday lagu iibiyay ashqaas jeebadooga ku dhacaysay meel ay public loogu soo bandhigayo la yiri danta guud iyo daryeelka bulshada laga shaqeeyay oo bariishadaas ay gashay oo iskuuladaas ay gashay oo wadooyinkaas ay gashay oo itiraafkaas ay gashay oo nidaamka wanaagsan iyo hanaanka horu socod ee dawladnimada gashay meel ay kaga taalamiyada ugu haysa barkhadii kale wasiirku waxa uu sheegay in mudaharaadkan aad ka kaashanaysaa sidoo hadalka u dhigay in abaabulkiisa idinka iyo dawladda Soomaaliya taniyo dawladda Soomaaliya cida wadiiqadan qaaday ee suxufiyiintu inay Soomaaliya taga nidaamka sameysay fanaaniintu inay Soomaaliya tagaan u ogolaatay siyaasiyiinta halkan jooga habeenkii intay iyaga ka tirsan tagaan ka soo noqdaan u ogolaatay wada hadalka la furtay albaabka Soomaaliya dib u qaraacday waa nidaamkan jira 7 sano faashilka cid imika xaramka farmaajo ugu tagtay ee bariyeysay lahayd DB wal hanaga kala kiciniyo madaarkana hanaga kala kicinad idukuba ka qorayseenad warkooda lahaayana waa iyaga cid hariya habeen la xiriidhay la hadashaana waa iyaga cid maxay tahay doorashadii barta ka dhacday saameynta iyo qorshaha iyo si uu socotay cid ku lahaydna waa iyaga cid uu oydaa 24 saacadood hoosta kaga xidhan ee barnaamijkan wadaana waa iyaga annaga sabab Soomaaliya la noogu eedeeyaa ma jirto imikana xubno kulmiye kamid ah ayaaba wasiirka ka doontay oo warkooda la haya shalay tolaad qorayseen cida Soomaaliya ku dhawaaleysay 24 saacadood hoosta kaga jirta ee xiriirka la jecel ee ku hadaaqaysa ee Soomaaliyeed raadinaysa waa iyaga cida mashaariicaha la cuntaa ee maalka ummadan ka dhaxaysa masaariifaysataana waa iyaga sabab anagu Soomaaliya ugu tagnaano ma jirto waxana maaha wax wadani wado wax cid gaari wado waa kacdoon shacab oo shacabkii damiirkoodu noolaa
ee wadaniyadda iyo ruuxda daljacayl qalbiga kaga jiray ayaa waxaan u adkaysan waayey markay arkeen dalkoodii inuu baaba'ay in maalkoodii la cunay in iyagii iminka in awlaaddoodii laybiyeen yar lagu jiro ayay international community-ga iyo dunida dimuqraadiyaddu ka hana qaaday tusayaan in dalkii somalilan la odhanayay la baabiiyey oo ay baabiiyeen ashkhaas heblaayiyo hebla miirana inta badan dhaliilaha xukuumadda Kenya waxaa isoo jeeday waa hal wasiir inta badan oo wasiirka wasaaradda warfaafinta maxaa sabab in wasiirkaas had jeer eedintiina xukuumadda soo faysto horta qofka bilaadanki karti iyo kalsooni buu ku meel maraa qofka bilaadanka xilka dawladnimo loo dhiibaa markuu karti iyo kalsooni leeyahay uu shaqadiisa garanayo uu nidaamkiisa garanayo ayuu meel maraa cadaani waxa looga fadhiyay in uu afayeenka dhan ee xukuumadda qaranka Soomaaliland 4 milyan ka wakiilka ah waninka dawladdu tiri codka xukuumadda 4 milyan ku hadal cidii hagardaamo iyo dib u geysanaysa qarannimada inuu isagu u jawaabo oo dawladaha jaarka markay statement soo saaraan uu ka jawaabo laakiin ibriiqiisan uu ku adimayaa inuu xukuumayo inuu dacayda ciro ciisi iyo sharaf inuu cadaan ku heliyo moodaya nin weyn baanu nahay oo wax badan baanu ognaa si kale waxba u sheegi meene cadaan waxaanu leenahay habeenkiina cid baata subaxdiina cid baata sifatu nifaaq iska daayo meelun isugu biyo shubaxaaji way xogay su'aasha u dambeysay in arinta sadiga military baarlamaanka Soomaaliland mudanayaashooda ansixiyay arin dhamaatay bay noqotay mar haddii Soomaaliland inta badan sharciga lagu kala baxaa arintii waa hore way dhamaatay waxaan wadani ilaa imika uu arintii dhamaatay ee sharciga ahayd uu la garab maraya ee ilaa imika qaylad uga sii yeedhaysa maxay tahay dabadro sharciyan hadda dib inoogu celiso horta procedure-kii wax lagu ansixinayo waxaan imay marin topic kale taasoo baan iskow waxaani baarlamaan labada gole markay isku imanayaan xaq buu meebay lahaynba horta guurtida iyo baarlamaanka in dawladdu soo kan khiyaamaana dhacday waxa lagu yiri khudbad baa la akhriyaa khudbad sanadeed madaxweyne qodobka labaad cidda ansix waxaani waa nuqul dawladdu waxa ka marxaati kacday inaanu heshiisayn baarlamaanka waxa la horkeeni karaya waa treaty between two states sida ku xusan qodobka 3 ee dastuurka firqadiisa saddexaad taas dhigaysa meesha waxa ka dhacay xadgudub baa ka dhacay waxa ka dhacay xildhibaano xasaanad la jirdilay oo idinku aduubaysan dibadda u soo baahinayseen waxa dhacay in democratic process-ki ahaa one man one vote oo discussion inuu dhaco oo aaraar iyo aragti la isku wajaho muu dhicin waxa dictator baa meesha lagu qabsaday ciidan duubca sabab la galiyay gudoomiyaha golaha guurtidu wuxuu afkiisa ka lahaa hebel saara iyo hebla saara sidii ay meeshu tahay soo cali gureeyde u sawiraya aad arki kareyseen marka wax sharci ahaaba mabayba hayma waa nana void hadii maxkamad la galo iyo hadii nidaam kale sharci la isku qancinayna wax sharciya maaha imikadaasna waxaanu qabnaa waxa baarlamaanku iyo leeyri labada golaha la isugu yeedhay kalfadhigooda ku ansaxay xisbi ahaan statement baanu ka soo saaranaa sharcina ma yahayn muwaadiniinta Soomaaliland ee qurbaha joogana waan ugu hambalyeynaa dareenkooda wadaniyadeed ee diirkana xadaleed leh ay sameeyeen dalka gudihiisana waanu ka sameyn doonaa dabal cadaan iyo qeyrkii anaga naga joojiya saakshi jireed buu qabtay wasiirku warfaafintu sida ka war haysaa marka waxaan doonayaa waxa adigu carababto tiraanagu shaqo kuma lihiin waxay ahayd dad muwaadiniina oo kacdoonkan iyo mudaharaad ka sameeyay isna wuxuu ku adduunayaa uu leeyahay wadani markay u suurtagelay wadanka gudihiisa inay mudaharaad sharci ma aha arintan saldhigu xukuumaddu waxay leedahay waa sharci xalku muxuu noqonayaa dawlad xalku wuxuu noqonayaa sifo sharci in lagu kala baxo sharcigii dalka iyaga kufsaday iyaga dawladnimadii baabiyay iyaga nidaamkii bahdilay waynu ogeeyno Cabdilqaadir oo tii ka dhacday golaha gudihiisa wax sharci iyo dawladnimo iyo karaamadii dawladnimo ku baabaaday nidaamkan meesha waay xalku wuxuu noqonayaa xal kale ma jirtee Soomaaliland shacabkeedu 7 sanadood bay samriyeen oo ku samriyeen qaraabakiil musuq qabyaalad cadaalad darro dulmi kala sarreyn nidaam xumo xalku waxa weeyaan in far lagu kiciyo ay handalka ku absaday